Turkiga ayuu ugu hanjabay aamusnaan, wuxuu daartay sigaarkiisa. Waxaa wadnaha farta ku qabtay Turkidii oo idil. Maxaa dhici doona hadduu sigaarkiisu damo? Saddam Hussein ma aha nin kaftama. Way wada garanayaan heerka awoodda aamusnaantiisa. Maxaad ka filan kartaa markaad damaacayso kheyraadka Saddam iyo dowladdiisa? Adigu haddii aadan Saddam garabkiisa ahayn, ha isku dayin inaad noqoto kan ay indhihiisu qabtaan. Turkigu wuxuu ku dhacay af libaax, wuxuu jaray webiga Dijla. Arrinku wuxuu gaaray madaxweyne Saddam. Hagaag, Turkidu waxay ka jareen webiga Dijla dhankooda, iyagoona ogeysiin Ciraaq, weliba iyadoo aysan jirin digniin hore. Haddaba Turkigu muxuu ka filan karaa Saddam, iyagoo si dhab ah u og jawaabtiisa? Simbirraxash iyo halis weyn, kuna dhawaatin inay Ankara gubato. Wasiirka arrimaha dibadda Ciraaq, Tariq Cabdilcaziz, ayaa fariintiisa u diray Ankara, laakiin Turkidu kama aysan soo jawaabin dhambaaladiisa. Arrinku wuxuu mar labaad gaaray madaxweyne Saddam. Wuxuu ku amray raggiisa inay u diyaariyaan diyaaradiisa gaarka ah, sigaarkiisa iyo kursi, si uu u ag fadhiisto jiinka webiga Dijla. Saddam wuxuu fadhiistay halkii uu cayintay, laakiin inta uusan damin sigaarkiisa maxaa dhacay? Waxaa bayaan degdeg ah soo saaray hogaamiyaha Turkiga ee xilligaas, una qornaa sida tan: Turkigu wuxuu sii deynayaa qulqulka webiga Dijla, weliba wuxuu ka kordhin doonaa inta ay ku heshiiyeen iyaga iyo Ciraaq. Laakiin ka hor inta uusan Saddam dhammaysan cabidda sigaarkiisa ayuu yidhi, Turkigu waxaa waajib ku ah inay hagaajiyaan dhaqamadooda. Markaan waxaan daartay sigaarkayga uun keliya. Marka xigta waxaan gubi doonaa Ankara inta aan dhammaysan sigaarkayga. Fadhi kursi oo aan qaadan daqiiqado, iyo cabidda hal sigaar ayuu Saddam ku xusuusiyey Turkiga iyo cid kastoo naftiisa ugu sheekeynayso taabashada qiyamka Ciraaq inuusan eedin naftiisa cid aan ahayn. Haddaba Turkigu ma ogaayeen waxa uu Saddam sugayo inta uusan cabin sigaarkiisa iyo cabidda sigaarkiisa kadibba.